Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada ku xidhan kanaalka hoyga bulshada kusoo dhawaada mowduuceena maanta haddaad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe noo sar mowduucana haddaad ka hesha like dhufo saaxiibadaada kalena sii gaarsii oo sii sheergare tobanka masaajid ee adduunka ugu waaweyn salaadu waa tiirka labaad ee diinta islaamka ay ku dhisan tahay masaajidaduna waa burkulanka ay muslimiintu isugu yimaadaan ayna ku cibaadaystaan salaada allahna ku tukadaan waxaa lagu qiyaasaa masaajidada ku yaala adduunka 3.6 milyan oo masjid haddaba waa kuwa tobanka masaajid ee adduunka ugu waaweyn maanta waxaan u baxaynaa safar balse safarka maaha kii gaadhiga iyo sidoo kale diyaaradda waa mid ka duwan ee kaalayo na soo raac oo barta tobanka masaajid ee ugu weyn caalamul islaam fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka hoyga bulshada waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا lambarka tobnaad waa masaajidka jaamac waxa uu ku yaalaa caasimadda dalka hindiya ee Delhi masaajidkan ayaa leh sooyaal fog masaajidkan ayaa sidoo kalena loo yaqaanaa magac kale Masjidul Jahanuna waxaana la dhisay sanadku markuu ahaa 1656 masaajidkan ayaa wuxuu awoodaa halkii marba inay ku tukadaan ama ku cibaadaystaan 25,000 oo ruux lambarka sagaalaad Masjidul Baitul Mukarram waxa uu ku yaalaa magaalada madaxda dalka Bangladesh ee Dhaka masaajidkan ayaa waxa uu maamula oo gacanta ku haya dawladda dalkaas waxaana la dhisay taariikhdu markay ahayd 1968 wuxuuna leeyahay naqshad cajiib ah oo qurux badan waxaana ku hareeraysan beero waaweyn masaajidkan ayaa halkii marba waxa awoodaa inay ku tukadaan muslimiin kor u dhaafaysa 40,000 oo ruux lambarka 8aad masaajidka Sheikh Sayid waxa uu ku yaalaa Abu Dhabi masaajidkan ayaa waxa uu dhismihiisu socday ilaa 1967 ilaa 2007 masaajidkan ayaa leh 81 minaaradood ama qudbi masaajidkan ayaa waxa uu awoodaa halkii marba inay ku tukadaan muslimiin kor u dhaafaysa 41,000 oo ruux lambarka 7aad Masjid Badshahi masaajidkan ayaa waxa uu ku yaalaa isla Pakistan magaalada Lahore masaajidkan ayaa la dhisay sanadku markuu ahaa 1673 ilaa haatan waxa uu qurux badan yahay sidoo uu ahaa markii farta laga qaaday dhismihii masaajidkan ayaa waxa dhinacyada ka xiga beero qurux badan ama ku hareeraysan goobta masaajidku ku yaalo guud ahaantiisba ayaa halkii mar waxa uu qaadaya 56,000 oo qof oo muslimiin ah lambarka 6aad Masjidul Faisal wuxuu ku yaalaa isla Pakistan gaar ahaan magaalada Lahore masaajidkan ayaa dhismihiisa la dhameystiray sanadku markuu ahaa 1987 waxaana masjidkan galay qarash ama lacag gaadhaysa 120 milyan oo dollar masaajidkan ayaa waxa uu awoodaa inay soo dhaweyso ama uu ku tukado 100,000 oo ruux lambarka 5aad Masjidul Hasan II waxa uu ku yaalaa Morocco masjidkan ayaa la dhameystiray sanadku markuu ahaa 1993 wuxuuna ku kacay qarash gaadhaya 400 milyan oo dollar masaajidkan ayaa halkii marba wuxuu ku tukan karaa 105,000 oo qof oo muslimiin ah lambarka 4aad Masjidul Istiqbaaq waxa uu ku yaalaa masaajidkan caasimadda Jakarta ee Indonesia masaajidkan ayaa la dhisay sanadku markuu ahaa 1978 waxaana ku kacay qarash gaadhaya 12 milyan oo dollar masaajidkan ayaa halkii mar waxa salaada ku cibaadaysta ama ku tukada 200,000 oo ruux oo muslimiin ah lambarka 3aad Imam Rice Shrine waxa uu ku yaalaa masaajidkani magaalada Mashhad ee dalka Iran masaajidkan ayaa la dhisay sanadku markuu ahaa 1818 masaajidkan ayaa waxa uu isugu iman kara dad kor u dhaafaya 500,000 oo ruux masaajidkan ayaa sanad walba waxa celcelisaan yimaada 12 milyan oo ruux waa Iran kaalinta labaad waxaa soo galay Masjidul Al-Nabawi waxa uu ku yaalaa masjidkani magaalada Madiina ee dalka Sacuudiga masaajidkan ayaa waxa dhisay Nabiyullaahi Maxamed sallallahu alayhi wasallam masjidkan ayaa Al-Nabawi waxa halkii mar ku wada tukan kara dad kor u dhaafaya 600,000 oo ruux lambarka ugu dambeeya ama ka koobaad waxaa galay Masjidul Haram wuxuu ku yaalaa Masjidul Haram Sacuudi Arabiya masjidkan ayaa sidoo kale waxa ku dhex yaala qiblada muslimiinta ee Kacbada wuxuu ku yaalaa Masjidul Haram Sacuudi Arabiya masjidkan sidoo kale waxa uu ku dhex yaala qiblada muslimiinta ee Kacbada
uu dhisay aadam calayhi salaam kadibna ibraahim calayhi salaam. masaajidkan ayaa halkii mar waxaa ku tukan kara 900,000 oo ruux. waa halka ay muslimiintu isugu yimaadaan sanad walba gudashada waajibaadka xajka oo ka mid ah tiirarka islaamka. masaajidada aan kor ku soo xusay waa macquul inaad horey u taqaanay, balse haddana maankaaga ku qor si aad u xasuusatid masaajidadan. balse waxaan rajaynayaa ka cabduule ahaan allah hadduu ka dhigo inaan maruun salaada allah kusoo tukado masaajidadan aan kor ku soo xusay. insha allah idinna waan idin rajaynayaa inaad kusoo tukataan. safarkeennii maanta intaas ayuu ku egyahay. safarku wuxuu safaraan ku kala bixinanay masaajidada adduunka ugu weyn caalamul islaam. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. anigoo cabduuli nadaare ayaa mawduuca soo diyaariyey. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fii amaanillaah. saaxiibayaal codsi kanaalka hoyga bulshada wuxuu taagan yahay soo daynta mawduucyo la xidhiidha arrimaha bulshada, qisooyin, taariikho iyo sidoo kale faafinta mawduucyo diin ah. ku xidhnow kanaalkeena, subscribe-na noo saar, gambaleelkana furo. mawduucana haddaad ka hesha like ku dhufo, sidoo kalena sii sheer gare oo saaxiibadada kale sii gaarsii. waxaanu maraynaa 2.6 oo u dhiganta 2600, balse fari kama qodno.